Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaamay meel walba aad dunida ka joogtaan magacayga waa Xafsa haddii aad markii kuugu horeyso aad janaalkayga soo booqanaysid fadlan subscribe ii saar hore haddii ila joogtin waa ku mahadsan tahay maanta waxaa idin wadaa cheesecake aad iyo aad u fudud oo waqti badan ka qaadanaynin 5 daqiiqo ku sameynaysid foorno u baahneen oo aad u macaan badan isla socod wanaagsan ujeedaan hadda waxaa isticmaali doonaa buskudkan baakad dhan ayaa isticmaali doonaa hadda waxaa kusoo shubay weelkan waa soo shiida kadibna waa isku soo laaban doonaa insha Allah hadda waa soo shiiday waxaa ku shubi doonaa butter aan soo dhalaaliyay markaas dhexgeliyo kadibna waxaa ku shubi doonaa weelkii oo aan ku sameyn lahay kadibna waxaa geli doonaa faranjeerka qadar waxay ku jiri doontaa 30 daqiiqo kadibna waxaa korka marin doonaa cheesecake iyo whipped cream iyo vanil yar iyo sokor yar kadibna waxaa geli doonaa faranjeerka waxay ku jiri doontaa muddo 1 saac kadib kor waxaa kaga shubi doonaa buskud cream aan soo dhalaaliyay insha Allah arki doonaa sida ku soo meeshaan waxaa ku haystaa fresh cheese oo cream ah kadibna waxaa ku dari doonaa whipping cream oo isku qasi doonaa nus koob nuskiisa oo sokor ah iyo vanilla intaas ayaa isku qasi doonaa kadibna waxaa soo bixi doonaa buskudkii aan gelinay faranjeerka 30 daqiiqo kadibna kan ayaa kor kaga shubi doonaa kadibna waxaan geli doonaa faranjeerka mar labaad waxay ku jiri doontaa 1 saac kadibna waxaa ku shubi doonaa buskud cream aan soo dhalaaliyay kadibna waxaan geli doonaa faranjeerka ku celi doonaa 30 daqiiqo kadib waa diyaar cheesecake inaba caadi maaha aad iyo aad ayuu u fudud yahay tijaabiyo waa ka heli doontaan markaas dhexgeli cheese creamkii iyo whipping creamkii aan soo qasay hadda kor ayaa kaga shubaa faranjeerka ayaa ku celinaa mar labaad waxay ku jiri doontaa 1 saac kadibna kor waxaa kaga shubi doonaa buskud creamkii aan soo dhalaaliyay
kadib hadda waa kasoo saaray faranjeerka, waxaa kor kaga shubayaa buskud creamkii aan soo dhalaaliyay. mar labaad ayaa faranjeerka ku celi doonaa, waxay ku jiri doontaa 30 daqiiqo kadibna waa jari doonaa, saxan ayaa soo saari doonaa, waa arki doontaan sidii kusoo baxda insha Allah. ugu dambeyn waa kasoo bixi faranjeerka, kor waxaa kaga sharxi doonaa buskud iyo buskud creamki aan soo dhalaaliyay geesaha kaga sharxi doonaa, kadibna buskud oo soo jijibiya kor kaga sharxi doonaa. markaa soo jiro saxanka soo saara, arki doontaa inaba caadi ma aha. ugu dambeyntii sidan quruxda badan ayuu kusoo baxay cheesekeeni, sida caadada ahayd qaybta dhadhamiskan anaa idin qaabilsan. fadlan hadduu videogan ku cajibi like noo saar, hadaa qabti commentiga noo soo qor, asxaabtaada la wadaag. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.